qisadeena ama mawduuceena maanta waa mawduuc aad u la yaab leh. Waa mawduuc mashquuliyey ama dhaliyey muran badan qarniyo dhan. Malaa'ig sixir baraysa bani'aadamka. Waxaynu ogsoonnahay inay malaa'igtu qabtaan shaqooyin sida malakul jibriil oo ah malagii nebiga waxyiga ku soo dejin jiray calayhi salaam, mikaa'il oo ah malagga ruuxda ka qaada noolaha. haaruut iyo maaruut waa laba malag oo ilaahay dhulka keenay, gaar ahaan baabil oo haatan dhacda koonfurta caasimadda baqdaad ee waddanka ciraaq, masaafo dhan 100 kiiloomitir. waqtiga ay labada malag dhulka yimaadeen ma xadidna, laakiin mufasiriinta ugu badan ayaa sheega inay ahayd dhimashadii nebi sulaymaan kabacdi calayhi salaam, halka kuwa kalena ay ka sheegaan inay ahayd markii nebi idriis calayhi salaam samada loo dallacay. haddaba farsiraadda aayaddaasi ayaa loo kala qaadaa 2 riwaayadood. riwaayad waafaqsan riwaayadda yuhuudda ee qeexaysa malaa'igtu markii ay arkeen dembiyada bani'aadamka ee samada loo dallacayo maalin waa ay xanaaqeen, waxayna rabbigood ka dalbadeen in uu eebba ku imtixaamo bani'aadamka dhulka. rabbina wuxuu ugu jawaabay, haddaad dhulka tagtaan waxaa idin gedin doonaa shahwadiisa. waxaana eebba ka dalbaday labada malag ee haaruut iyo maaruut inay dhulka u degaan si ay u xusaan una caabudaan, ilaa ay dembi ku dhaceen gabadh qurux badan aawadeed. gabadha magaceeda waxaa la idhaahdaa astiir, sida kutubta yuhuudda ku xusan, halka islaamkana looga yaqaano suura. gabadha waxaa la sheegaa inay gar ula timid bacdii markii ay damceen waxay ka codsatay inay eebbe ka kufriyaan oo ayna ka diideen. kabacdi waxay ka dalbatay inay u sheegaan magaca eebbe weyn ee samada lagu karo, kadib waa ay ka diideen. kadib waxay ka dalbatay inay dilaan wiil yar oo markaa la socday. kabacdi waa ay ka diideen, wana ay diideen in ay dilaan naf aan waxba geysan. kadib waxa ay ka codsatay in ay cabaan khamri, waxayna dhaheen labadii malag, shar la sameeyo waa waxa ugu yar. waa ayna cabbeen oo ayna ku dhaceen dembiyadii oo dhan. gabadhii waxa ay ogaatay magaca eebbe weyn ee samada lagu koro, waxaanay kortay samadii, waxaana isku beddeshay meero ka mid ah meerayaasha samada, waana meeraha carabi ahaan loo yaqaano suhra, sida ka dheehan magaceeda riwaayadda islaamiga ah. waxa ay sheegaan riwaayadaha yuhuuddu in ay ahayd taasi abaalkeeda, maxaa yeelay waxa ay lugoysay labadii malag, halka ay kuwa kalena ka sheegaan inay ilowday magaca eebbe weyn ee samada lagaga soo dego. sababta ay aayaddan ku soo degtay ayaa ah siduu ibnu katiir kutubkiisa tafsiirka ah ku sheegay, kadib markii yuhuuddii reer madiina ay nebiga wax ka weydiiyeen sixirka. kadib aayaddan ayaa soo degtay si uu eebba uga nasaho sulaymaan calayhi salaam inuu sixiroola ahaa. riwaayadda kale ee diidan riwaayadda yuhuudda, sida ay sugeen ibnu katiir, tabari iyo culimo kale oo badan, ayaa qeexaysa markii uu nebi sulaymaan calayhi salaam xanuustay, maamulkiina uu kari waayey, shayaadiintii waxa ay biloobeen inay samada koraan kana soo xadaan malaa'igta wararka, una keenaan sixiroolayaasha si ay sixiroolayaashu u sheegtaan inay garanayaan waxa dhacaya mustaqbalka. ay wadaanba waxa ay bilaabeen inay qoraan kutubo sixira, ciwaano uga dhigaan kani waa wixii uu ka qoray aasif ibnu barkhiya sulaymaan calayhi salaam. aasif ibnu barkhiyana si ay xuseen kutubtu waa ninkii nebi sulaymaan calayhi salaam u keenay carshigii balqiis. markii uu sulaymaan caafimaaday soona ceshtay xukunkiisa, ayaa waxa uu bilaabay inuu ururiyo kutubadii sixirka ahayd, kuna rido sanduuq, kuna aaso
carshigiisa hoostiisa. Ma uu ka ahayn shaydaan mid u soo dhowaada ilaa ayuu ka noqdo mid hoogay oo gubtay mooyaane. Markii uu Sulaymaan dhintay, culimmadiina ay dhammaadeen, jiil ilaa ka jiil ay yimaadeen, waxa uu bilaabay Ibliis inuu qof iska soo dhigo una imaado kooxo ka mid ah reer bani Israa'iil una sheego inuu ahaa Sulaymaan calayhi salaam sixiroole uusan ahayn nebi. Ay ka meermeeraanba wuxuu u sheegay inuu hayo caddayn, waxaana uu geeyey carshigii Sulaymaan, waxaana uu ka soo saaray kutubtii sixirka ahayd. Halkaas waxaa ku faaftay inuu Sulaymaan ahaa sixiroole. Natiijadii ka dhalatayna waxa ay noqotay in ay bataan sixiroolayaashii, sidoo kale sheegtaanna nebinimo. Halkaas waxa uu Eebbe ku soo dejiyey Haaruut iyo Maaruut si ay dadka sixirka u baraan, si ay u kala caddeeyaan farqiga u dhexeeya mucjisada nebinimada iyo sixirka. Ay ka ahayn kuwa dadka bara ilaa ay u sheegaan qofkii barta kuna camal fala in masiirkiisu noqon doono cadaabta. Qofkii barta kuna camal falinna iimaansadana xigmadda ku jirta inuu masiirkiisu noqon doono jannada. Runtii Eebbe waa xakiim. Haddaba haynu nimaadno masiirkii labadii malag ee Haaruut iyo Maaruut ee riwaayaddii Yuhuudda iyo tii waafaqsanaydba riwaayadda Yuhuudda. Labadii malag la kala dooransiiyey ciqaabta dunida iyo ciqaabta aakhiro. Dabcan waxa ay doorteen ciqaabta dunida, waxaana la sheegay in lagu riday ceel Baabil ku yaala. Waxa laga dhigay lugahooda kor, madaxoodana hoos. Waxa hoostooda yimaada waxa adduun qiiqa yaala, waanay ooman yihiin, mana awoodaan in ay biyaha cabbaan hoostooda yaala. Wallaahu aclam. Qisada Haaruut iyo Maaruut waxa lagu xusay diimo badan sida diinta Masiixiga ah, iyadoo kutubka Masiixiga casriga ee cusub xustay ciqaabta labada malag. Waxa kale oo lagu xusay diinta Armaaniyiinta oo iyagu caabudi jiray laba ilaah oo la kala odhan jiray Haaroot iyo Maaroot, oo iyagu aaminsanaayeen inay xukumaan dabaylaha. Dabaylahaas oo u sahlaya in ay roob helaan sida ay ugu fududaato in ay dhulka ka helaan dalagyo kala duwan. Waxa kale oo lagu xusay diinta Hinduuska sida kutubkii hore qadiimiga ahaa ee Mahabharata oo lagu qoray luuqadda Sanskriitiga, waana luuqadda labaad ee rasmiga ah 22 luuqadood ee lagaga hadlo Hindiya.